saacada daawadayaal waqtigan waxay abaaraysaa 10 waxaad dareemi kartaan mashquulka iyo saxmadda waqtigan ka jirto isgoyska Tawfiiq ee magaalada Muqdisho tani waxa ay muujinaysaa ammaanka ka jira caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dad badan oo ku nool dibadaha oo walwal badan ka qabay ammaanka magaalada Muqdisho tani waxay cadeyn buuxa u tahay in Muqdisho ay tahay ammaan buuxa waxa ku yaala degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir garoomo lagu ciyaaro kubadda cagta oo dhalinyarada ay ku ciyaaraan garoonkan waxa uu ku yaalaa xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid waxaana ku ciyaarta dhalinyarada mid kamid ah dhalinyarada meeshaasi ku ciyaareysay ayaa waxay inoo sheegeen annaga waxaan deganahay aan ku noolnahay xaafaddan Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid wax dhibana ma aragno habeenkii ilaa 7 saac habeenimo waa baashaalnaa degmada Yaaqshiid dadku waxay ka aaminsan yihiin wax ka jira ma ahan waa nabad hadda xilligan la hadlayno waa xilli 3 saac kor u sii dhaafto habeenimo waan u jeedin dhalinyarada way baashaalayaan wax dhib ma jiro Yaaqshiidna waa dad nabadda jecel isboortiskeeda hadayta iyo haday dhalinyarada taabaan waan ku faraxsanahay inaan ku noolahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid sidaasi waxa tiraf maamo Farxiyo oo kamid ah haweenka ku nool xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid waa dareemi kartaa amniga degmada Yaaqshiid inuu saaf yahay intaan oo bulsho ah ayaa ku nool dhalinyaro haween wax walba ayaa saacada wada damaashaada dukaamada ay furan yihiin shidaalku furan yahay magaalada dhan waa okay maamulka degmada Yaaqshiid iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen inay si dhow iskula shaqeeyaan dadka ku nool degmadaasi gaar ahaan dhalinyarada waxa ayna tilmaameen in waqti ay wada qaataan xilliga habeenkii dhalinyarada kusimaha gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ayaa waxa uu ka warbixinayaa ammaanka ka jira degmada uu gudoomiyaha ka yahay ala qaybsanaa farxadda iyo reynta dhalinyarada iyo dadka ganacsatada ah ee soo jeeda 4 saac habeenimo hadda aan joogno waqti qurux badan waxaan leenahay shacabka ee Yaaqshiid guud ahaan reer Muqdisho waxaan leenahay Yaaqshiid waa nabad waa meel la mari karo saacad la doono waa meel lagu damaashaadi karo waa meel loo dalxiistay karo Fayeenka gobolka Banaadir Saalax Dheere ayaa waxa uu sheegay in ammaanka ka jira degmadani ay tahay mid lagu faani karo sidoo kale waxa uu